markiiska aflax oo ku yaala gudaha magaalada Caynaba isla markaasina lagu barto xifdinta Quraanka Kariimka iyo duruusta kale ee diiniga ah ayaa maanta waxa uu munaasabad u qabtay arday dhamaysay isla markaasina xifdiyay Quraanka Kariimka iyo qaybo kamid ah duruusta diiniga munaasabadan oo ka qabsoontay masjid jaamaca magaalada Caynaba ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin culimo oo diin waalidiin iyo ardayda wax ka barata markiiskaasi ugu horreyn halkaasi waxa ka hadlay maamulaha guud ee markiiska aflax محمد آدن أحمد فرلجو حنا فافاين كبحية مرحلة كلا دوانا أو مركز كان إسلام رأي مركز كأفلح وجوهرين مركز كوحل بلابي أمل أساسي سجالكي بش شعبان كن أفر بقول صدني سجالكي هجرية كنا بيجان صدحي لباتن كبش اللحاد لبكون سدية طبعا محد مركز كأفلح waxa uu bixiyaa amba lagu bartaa culum kala duwan waxa ugu horeeya mudnaanshaha iyo awoodana la saaraa sidii loo bari lahaa ardayda kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa yagana kamida maadooyinka uu bixiyo markasku higaada waxyaalaha uu bixiyo markasku اللغة العربية لغة عربية أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم مركز كوحة وكلوب بحياء ومادوين كيسا كامدا عقيدة أما اعتقادك قفك مسلمك مادوينك وبحياء وحكامدا مركز أفلح فقهك وأردد الحفتيسية اندهنات كواركي دونتان مطون وحنود عين يا إن الله سبحانه وتعالى كوانفعو أرضيدا أينو ما أنت حفلة دودا أوفر لنقل جبنتها وحن لي أرضيي قرآن كي حد يراد بلودين قرآن كمركا دم يسوى مركا هاوشا وقبضنا يكون بلا منيسو هاي سبقانينا أو قرآن كا حضيت هاي علومتي سكالي سيد دالو سيد شوكتيا وحن كلو مهدنقيا وأنو دعينيا إنو الدنيا آخر بإلهي الليبانيو عيال كادمي يا معروضة دميس القرآن كا والدين تودنا ونود عينيا qaar kamid ah ardayda kala duwan ee iyagu wax ka barta markiiska aflax ayaa iyagu munaasabadan ku soo bandhigay culunta kala duwan ee ka bartaan markiiskani aflax الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يا رحمن يا رحيم أنت العليم 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 أنت الحافظ الحافظ العلى العلي أنت الملك الملك المولى الوالي ما صير كسابسا مركز كافله بسم الله وقول هذا لغو بنيو تحت لغو بلابي أم بحناش ما صدا وابور أبواني أم بلاغ ويرا بقر كيسي ويوري بدو يا قويهان مياي بيد وداغان برا ودا استاغان بلاد ودا يقلالان ساشا برتاديو جواب تادا لربحن وايا وابركمتال إنما يبنان تاي أقوم بابحنانا له دين بابدانا له شهر بابحدلانو إساقا بخورا له نقبي حالها يو بشاري والشاقبان بشيان سلاي إنه لغو بريصدو مسان لغو بدانو خير بدنك صوبحو ما لغو برتابان إدين بابا ياي أبلح بيك صدو تغا يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل gudoomiye ku-xigeenka baanka magaalada Caynaba Yaasiin Maxamed Mire una kamid ah culimada diinta gobolka Saraar iyo waliba waalidiinta ardaydooda ay wax ka bartaan markiiskani aflax ayaa u hambaliyay ardayda maanta munaasabadan loo qabtay kuwaas oo xiftiyay Quraanka Kariimka waxayna sidoo kale u hambaliyeen isla markaasina ammaan iyo ducaa u direen maamulka iyo macallimiinta markiiska aflax oo ay ku tilmaameen inay waqtigooda u fureen sidii ay u soo saari lahaayeen arday tayeysan xafladan qiimaha iyo qaayaha leh ee loo qabtay كلامك ugu khayrka badnaa wax lagu hadlo kalaamullaahi subhanahu wa ta'ala oo lagu qabtay bogcada ilaahay meelihii ugu barakada badnaa ama loogu jeclaa oo ahaa masaajidadiisa
waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa alle subxaanahu wa tacaala oo inoo suurto geliyey inaynu maanta xaflad aynu kalaamkiisii ku maamuusayno iyo barashadiisa qabsoomkeeda aynoo qabsoontay inoo walaalayaal waa meel aan marnaba lagu qaday adduun iyo aakhiro waxa qura ee lagu liimaanayaana waa qur-aanka marka in lagu tartamo oo la isugu yimaado oo la isku arko oo maaragtay la dhiiri geliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaaba inagu ammaanay oo yidhi maaragtay ku soo tartama halkaa meel lagu tartamo halkaasaa ugu qurux badan waxa aan ku celiya waxa aynu ku liimaanaynaa adduun iyo aakhiro waa diinta weeye diintu markaynu gurigeenna geyno gurigeenna markaynu geyno waa guriga ayaa midhuhu ka soo baxayaan marka ardayda maanta qalin jebinaysa qur-aanka dhammaystay mid baan odhanayaa waxa weeyaan kalaamkii ilaahay baa barateen oo aada dhammayseen waxaa laydinka doonayaa inaad xifdidaan oo aada sii haysaan oo aydaan gadaal uga bixinin inta kale yaryaree soo wadana waxaan leeyahay ku soo dadaala oo ku barbaara oo qur-aanka kariimka ah iyo kitaabka uu ku qoran yahay ha la ilaaliyo yuuna culumta kale ama buugta kale idinla mid noqonin khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah dadka waxaa ugu khayr badan qofka qur-aanka barta dadkana sii bara sida uu ka dhawaajiyey maamulaha madrasadda oo ahna ka mid ah dardaaradii sheekh cabdikariin xasan xoosh uu yidhi markaad cilmiga barataan waa inaad cilmiga sekada ka bixisaan waa inaad cilmiga aanay ku doonin adduun qura waa inaad samaystaa buu shiikaas ku dardaarmay cabdikariin xasan xoosh waa taqaaniin waxaa ku dardaarmay haddaad cilmi barato waa inaad samaysataa inta yoomkaa uu kaa soo gelaya mooyaane in kuu gaara oo dar ilaahay aada ugu dhigto sidoo adigana cilmigu wax kuu taro dadkii kalena ay ugu anfacaan ugu horeyn waxaan u mahad celinay ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo markaasi fududeeyey arrinkan isaga marka labaad waxaa mahad ay u sugnaatay dadkan markaasi mujtamacan isugu yimi meesha maamulka iyo macallimiinta markisul aflax waalidiinta sharafta leh culimada marti sharafta kale dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin macallimiintana aad baan ugu ammaanaya macallimiinta markaskan iyo maamulahooda aad baa u mahadsan tihiin jasaakum allahu khayr aljazaa salaamu calaa rasuulillaah halkan waxaan u hambalyaynayaa runtii ardayda qalin jebisay ee qur-aanka taxfiid alqur'aan soddonkii jis ee korka ka qabatay ee dadaalka intaa leeg muujisay iyo waalidiintooda ku tabcay waxaa kale oo aan ula ducaynayaa oo aan u hambalyaynayaa culimmadii maamulaha iyo macallimiinta madrasatu aflax dadweynaha soo camiray dhallinyarada kale ee malcaamadda ku jirtay halkan fadhida ee da-doodu aada u yar tahay ilaahay haydin barakeeyo dhammaantiin baan leeyahay runtii xafladdan waxay ka mid tahay xafladaha kooban ee u baahan in la badiyo mar walba oo la joogteeyo ugu dambayntii waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ardayda maanta xafladda loo qabtay kuwaasoo xifdiyey qur-aanka kariimka iyo qaybo ka mid a duruusta diiniga ah jaamaca boodacde warbaahinta qaranka somalilan caynaba